waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalayaal waxaan idin soo gudbin doonaa wararka ugu muhiimsan oo ka hadlaya cunsurnimada. qofka la cunsuriyeeyo waa xaaladda ugu xun ama ugu markaasi dhibaato badan dunida. saa ogtihiin cunsurnimada diinteena islaamka ma aysan banaan. marka waxaad ku soo dhawaataan cunsurnimada insha allah. janalka waxaa weeye janal n ugu kala janal youtube. haddii aad ku cusub tahay janalkan subscribe saar, kadib gambalaalka furo saad u hesho warbixin walbo uu soo dhigul oo youtube-kan. like-na saar, shiina sheegaray asxaabtaada kale say u gaaraan. marka walaalayaal waxaa weeye arrintaa ayada ah. maanta waxaa marti nooga ah telefishinkeena aan iraahda youtube-kan ema ugu kala youtube janal profesorkeena profesor Eno. waxaan rabaa inaan oo kula soo gudbiyo waxyaalaha ugu muhiimsan cunsurnimada. badanaa cunsurid xagee laga dareemaa, xageena badanaa ay ku dhacdaa dhacdadan oo xanuunka badan. waxaan ogaan doonaa isagoo faahfaahsan oo warbixin dheexan oo noogu soo diyaariyey profesorkeena profesor Eno. profesorka wuu dhintay, ilaaha u naxariista, adduunka wuu ka tegey. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ugu rajaynaynaa jannadiisa firdows inuu ku waraabiyo oo khabrigiisana u waasico insha allahu. marka walaalayaal aan ka digtoonaano qofka walaalkaaga muslimka ah inaad ku tilmaantid baangaab ama waxaa tahay qof markaas iga hooseeya. arrintaa ayada ah adduunka lagama hormarayo, aakharana kuma liibaanaysa adduunya aakharo. waxa aanoo wanaagsan waxay tahay inaan ka faa'iidaysano walaaltinimada, islaamnimada iyo wixii la mid ah. marka insha allah waxaad ku soo dhawaataan isagoo oo faahfaahsan insha allah. بكأس الحب مترعة وصافي الود ناسقيكم بكأس الحب وصافي الود ناسقيكم toronto ayaan ku arkay gabdhihii Soomaaliyeed oo Jamaican oo raacay. raggii Soomaaliyeed way xanaaqsan yihiin, waali ay isku dhigeen. waxaan ku yiraahdaa maxaad macno darro kale isugu kicinaysaa? sababtoo ah Jamaicanka waxba kama qaadi karaan oo uguma hanjabi karaan sideena oo kale markii aan wadankii joogno. sida بدت فيكم قلوب الناس أجنادهم كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد شمائل waad aragtaa xaqiiqda jirta Soomaa. maxaad Jamaicanka u joojin weyseen? maxaad Jamaicanka gabdhaheena uga cadoweysaa? وكل الورد نهديكم Jareer or Ahmadiban or Gaboye, he cannot marry the other Somali group. Why? waxaa jirta caqiida dhaqameed oranaysa jareer, madhibaan ama gabooye ma guursan karaan Soomaalida kale. maxay tahay sababtu? ii sheeg maxay tahay sababta aysan u guursan karin? Tell me, why can't he marry? What is the reason? I was teaching at York University in Canada. ورنا على عبودك قال لنا والله you know مثل كلا الصع. and I tell them welcome to the real world. waxaan macallin ka ahaa jaamacadda York ee dalka Canada. waxaan arkay arday Soomaaliya oo ka cabanaysa cunsurinimo. waxaan ku yiraahdaa ku soo dhawaada dunida dhabta ah. sababtoo ah anigu waxaan qabaa tababar aad idinku isiiseen markii aan dalkii joogay. waxa aad ka cabanaysaan waxba iigama duwana jab doolsha ah. xitaa hal maalin oo kaliya weligay cunsuriyad kuma dareemin Canada. sababtoo ah idinka ayaa horay ii tababaray. I never felt even single day in Canada that I was discriminated. Never. Because I was already prepared by you guys.